kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ee wadana oo lahaa maalintiisa lixaad ololaha doorashada aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka sameeyay fantasiyo dowladda ay ku soo bandhigayeen cududooda taageero ay ku leeyihiin gobolka taageerayaashan ayaa ku dhawaaqay hal ku dhigyo kala duwan isla markaana lulaya astaamaha u gaarka xisbiga isbaldoonka wadani geesigime haliyayigime Abdurrahman me xaatigime taageerayaasha isku soo biishubtay fagaaraha khayriyeed ee magaalada Burco waxaana halkaas kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ee kaambeynka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco mas'uuliyiin waxgarad siyaasiyiin qurbo joog iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco si rasmi ah u shaaciyay inuu ku soo biiray xisbiga wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantiin sida sharafta leh ee qiimaha leh ee gobonnimada leh ee ay isugu soo baxdeen idinkoo muujinaya taageeradiinna iyo cududiinna iyo miisaankiinna kulmiye qabyaalad buu ku ololaynaya wadanina qarannimu ku ololaynaya waxaynu leenahay kulmiye bedeluu sidaad ogtihiin halka walaalayaal waynu ka sifaynay xisbigii kulmiye waxaad ogtihiin inaanu laba olole ka soo xaadirin khayriyadda magaalada Burco iyadoo itaaldaridiisu ay halkaa dhigtay oo aanay imanin taageerayaasha xisbiga wadanina ay sidii caadada u ahayd ay fagaarayaasha soo camireen halkan wasiiradii maalintii dhawatalo ka faanayay dhulkii dhambeeyey ee dhameeyey moolkii Burco aad ogeydeen ee xabaalihii kuulgadiid iyo xabaalihii iibiyey ee eeriboodhadii iibiyey ayaa haddana kaambeyn ka sheekeynayay indha adkaantooda oo lahaa kulmiye wadani kaambeynka ma yaqaano iyagii baana fagaarihii maanta laga laayahay waxaan idiin sheegayaa xisbigii kulmiye horta inuu kacay ma maqasheen wuu kacay miyaa ayaamaha ku aragtay khayriyadda lacagtii masaakiintana waa cuneen dabeedna way haddana waxba way waayeen waxa markhaati inooga ah kulmiye inuu kacay maalin walba wasiirradii u waaweynaa ayaa ka tegaya oo iscasilaya waddani ha guulayso musuq maasuq miyaynu u baahannahay cadaalad darro miyaynu u baahannahay waxaa beddeli karaya farteenna dhallinyaroy codkiina idinkaa leh xisbiga midnimada ha la raaco ka kala qaybinaya ha dhaco waxaynu beddelaynaa shanta kulmiye rabbaystay ee shacabka reer Soomaaliland ku dhex korsaday ee la yidhaahdo shanta ilmo kulmiye shantaasi maxay yihiin waa cadaalad darrada waa qabyaaladda waa sixir bararka waa musuq maasuqa iyo boobka hantida bedeluu codka yaa iska leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi baa iska leh Burco midowdaan ku faanaya Togdheer baan ku faanaya wadani baan ku faanaya aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa taageerada ballaadhan ee u haysaan xusbiga wadani walaalayaal kollay maanta shucuurtiina waa muujiseen waxaan leenahay kulmiye ha dhaco shalay bedeluu leeyahay maanta waa urbuquu Allahu akbar codka siiya wadani siiya wadani ha guulayso mayuu kulmiye rawaxuu guul baa inoo rajaynayaa xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ha guulayso walaalayaal farxad weyn bay ii tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo xafladda xisbiga wadani ee badbaadada shacabka reer Soomaaliland waxaan idinkula dardaarmayaa inaa ilaashataan kaadharka inaa ilaashataan nabadgelyada halkan kelmad ka odhanayaa oo aan u sheegayaa saaxiibkay Abdurrahman Sotolko maayarka magaalada Hargeysa kelmadii bedeluu baa dhibtay bedeluu Abdurrahman waxaan leeyahay isbedel baad ku timi isbedel baad maayar ku tahay isbedel baad shiciir kugu bedeshay isbedel baad maanta ku tagaysaa isbedel buu kulmiye ku tagayaa haddaad isbedelka diiddo waxaa imanaya cararu waa Cabdirasaaq Karoto iyo Maxamed Xiiri telefishinka caalamiga Saab magaalada Burco